Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada my channel. Maanta waxaan idiin wadaa maraq aan ka sameeyay malaay iyo qudaar kala duwan. Waxaan ugu talagalay maraqan bishan soon maadaama oo maalmo kaliya ay ka harsan tahay bishii soon. Iyo waxyaalihii aan ka sameeyay insha Allah daawasho wacan. maanta waxaan isticmaalayaa instant pot-ka oo ma aha digsigan kaliya runtii inaad isticmaasho digsi alaal digsi ku yaala isticmaali kartaa. malaayga aan karinayo waxaa waaye salmon oo frozen ah oo 30 daqiiqo ka hor aan kasoo bixiyay frozen-ka. halkaas waxaan ku haystaa baradho iyo 4 xabo baradho iyo 2 xabo yaanyo oo jarjarto. halkan waxaan ku haystaa celery barbarooniga guduudan, kabsar caleen, basal iyo tuun aan jarjartay ayaa halkaas igu diyaar ah. waxaan kaloo ku dari doonaa cusbo hal qaado yar, qofkii rabo uu ka dhaafi karaa cusbada runtii. oregano iyo spice aniga aan samaystay oo waxyaalo natural ah oo aan shiiday isku dardarsaday ah. maasha Allah digsi saliid yar ay igu jirto oo 2 qaado camal saliid olive oil oo iyo qandacday wax yar sugaayay. hadda waxaan ku darsanayaa basashii iyo tuuntii ayaan rabaa inaan wax yar qaleeyo intaan ku darin qudaarta kale iyo malaayga. maasha Allah run ahaantii digsigan oo kale ana isticmaasho ma ahan digsiyaal kale oo ka duwan ayaa isticmaali kartaa. digsi ala digsi guriga ku yaalo hadda kor waan ku kariyay oven top-ka waan ku kariyay waqti dheer macnaha waqtiga hadda 10 daqiiqo meesha kan uu ku karinayo aniga hadda howl fududays la iga tahay. laakiin maasha Allah hadda waxaan ku darsanayaa qudaarta basasha waa ay diyaar. waxaan ku darsanayaa xawaashiyadii iyo cusbadii wax yar aan isdhexgelinayaa. waxaa jiro pressure cook aanan ahayn runtii aan koronto ku shaqeynina jiraan siyaalo badan waxyaalo badan lagu karsan karaa jiro digsigan oo kaliya ma aha. malaaygi ayaan hadda ku darsanayaa digsiyaal nooca doonta digsi nooca la nooc ku yaala ku karsan kartaa waqtiga baa kala duwan oo qaadanayo. digsiga waxa ku karsaday hadda ka hor oven top-ka aan ku kariyay oo dabka u gaabsanay marka qudaartii iyo wax dhan basasha ku shiilato oo qalaysato qudaarta iyo malaygana dhinacyada u gadisid 2 jeer oo ku gaduuto. qudaartii biyaha iskula darsanaysaa digsiga caadiga markaad ku karinayso markaas daboolka saaranaysa dabka u gaabsanaysa. marka digsiga doonta ku karsan kartaa. also waxaa jiro pressure cook oo aan koronto ku shaqeynin. pressure cook-yada naftirkooda korontada ku shaqeeya meel walba way yaalaan oo meel kasta laga helaa ayagoo noocyo kala duwan noocaan oo kaliya ma aha. maasha Allah malaayga wax yar aan sugaaya inuu dhinacyada oo ka gaduuto dhinaca hoose. markuu aan hal mar aan gadiyo ayaan waxaan ku daray qudaartii oo dhan hal mar. hadda basasha waxaan ku daray hadda baradhadii iyo yaanyadii baan ku darsaday. celery-gii iyo barbaroonigii iyo kabsar caleentana hal mar aan isku darayaa. waxa uu kala reebaya mala hal mar aan isku darayaa. maasha Allah runtii waxay ku fiican tahay cuntadan markii lagu afuro oo ma daynayno cuntooyinka shiilan oo family-gu maadaama dad badan guriga ay joogaan ruux kasteeto uu rabaa choice-kiisa waana in loo tixgeliyo.
marka cuntada shiilad lama deyn karo oo waa la karinaa dabcan laakiin cuntooyinkan oo kale in la badsado oo ugu yaraan hal nooc oo maraq aad soo saartid ama soup aad soo saartid waaye si oo qofka nafaqo u siiso iyo energy waxaan damiyay sateegi qudaarta aan ku shiilayay aan damiyay waxaan ku daray qiyaastii hal koob iyo bar oo biyo ah biyo badan uma baahnid inaad ku dartid sababtoo digsiga biyo ma sid macnaha waxba biyo ma ka baxayaan qiiq kama soo baxaayo marka biyihiiba ma lama aadayaan also malayga iyo frozen oo ahaa biyo waa ka soo baxayaan markii uu kululaado qudaarta sidoo kale biyo leedahay insha Allah hadda waa daboolayaa 10 daqiiqo oo kale ayaan karinayaa micnaha barasharka gelinayaa waan ka danaysanayaa danahaygan ka qabsanayaa korun baan ka ogaanayaa fadlan caruurtana hadii digsigan oo kala isticmaalayso jikada laga ilaaliyo marka uu daaran yahay waan ka tagay haddaan ku soo noqday marka hal daqiiqo oo kaliya ka hartay 10 daqiiqo daqiiqadaas markay ii dhamaatane ma furaayo hore ka furi maayo waa inaan sugo ilaa 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo hadda waan soo noqday halkii daqiiqo waa dhamaatay haddana waan sugi ilaa 15 daqiiqo insha Allah 15 daqiiqo ayaa hadda ii dhamaatay oo sugay inuu barasharka hoos u dago oo uu yara qaboobo markuu 10 daqiiqo dhameeyay kariska ahaa horeyna kama furin barasharkan ka saaray waan damiyay off waaye ma sha Allah cunto aan caadi ahayn baa ka soo baxday maraqaas ayaa ka soo baxay waa maraq wax walba aad ku diyaarsan karto wax walba macnaha rooti moofo hatta bariis aad ku cuni kartaa macaroni baasta macaroni aad karsan kartaa hadda waxaan soo diyaarsanayaa meeshii aan ku diyaarsan lahaa weelkii aan ku serve gareyn lahaa serving bowl-kaas aan soo diyaarsaday ما شاء الله زرف البوركة سان كسور ردايا وانا دي لتوسي دونا سيدي كسور بحضي hadda waa kana serving bowl-kii aan kusoo riday waa maraq aan caadi ahayn oo aad iyo aad u caafimaad badan runtii liinta jaalaha ah ayaan jaranayaa hadda liinta jaalaha aan jaranayaa oo aan inaha slice yar u jarjaranayaa liinta jaalaha ah aad iyo aad ay u caafimaad badan tahay vitamin C ku jirto haddii qof micnaha aadan rabin cusbo inaad ku darsato ama dhiikar dad qabi iyo waxaas ay guriga kula joogaan ama dad waaweyn ay kula degan yihiin oo waarid ah fadlan cusbada ka ilaali aniga maanta bariiskaas aan u karsaday waa brown rice oo biyo kaliya lagu kariyo cusbo kuma darin saliid kuma darin sababtoo wax kale cuntadaana wax walba ku daray oo caraftii oo dhan iyo qudaartii dhan ay ku jirtaa marka uma baahna inaan wax kale ku dardaro bariiska uma baahnayn bariiska un baan kariyay biyo kaliya aan ku kariyay si caadi ah cuntadan maanta oo dhan ma oomeysid aniga badanaa waxaan ku shubtaa baaquli sidiisaana qaadaan aan ku cunaayo macnaha maba
inaa ma aragtay rooti iyo baasti iyo bariis iyo waxaas dhan badanaa maba u isticmaalaba ayada keligeedaaba cunto fuul ah waaye oo meal waaye suub ahaan u isticmaali kartaa laakiin maraq waaye hadda muufaa lagu cuni karaa waxaa lagu cuni karaa macaroni baasta macaroni waxaa lagu cuni karaa bariisa u karsan kartaa sidaan hadda sameeynay anaga caawa cashada halkaa waxaa igu jirto kabsar caleen qalalan oo wax yar aan korka kaga soo daraayo masha Allah hadda carafta iyo kuma sheegi karo carafteeda iyo macnaha caafimaadka ishaada ku macalina waad qiyaasi kartaa sida macnaha inta waxyaalaha ka sameeyay ayaa ka cadahay inay macnaha caafimaad leedahay uma baahano ka hadal badan waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaan oo isku daydaan oo soonkan looga faa'iideeyo dadka oo dhan masha Allah ka faa'iideysta waana ku mahadsantihiin daawashadiina aad iyo aad aan macnaha idinku mahad celinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh